halkani waa magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal waa magaalo si weyn nabadgelyada taalla iyo horumarka dhinaca waxbarashada iyo wax soo saarka kala duwan ee beeruhu ay muddooyinkii ugu dambeeyay ku soo badanayaan walaa ay jirto shaqooyin siyaasadeed oo muddooyinkii ugu dambeeyay laga dareemay caasimadda gobolka Awdal saacadu markay ahayd habeenkii xalay ahayd 12 oo 20 la ayaa xafiiska maaliyadda gobolka Awdal waxa laga tuuray bamba gacmeed taasi oo wax khasaare ah geysanin maraan isku daynay mas'uuliyiinta maamulka maaliyadda Boorama lama amaanka gobolka Awdal kuwa ugu sareeya iyo barasaabka gobolka Awdal ayaa gudaanba galinkii hore ee maanta ka gaabsaday barasaabka gobolka Awdal oo kulan dhiirigelin iyo xog waran la qaadanaya dhalinyarada gobolka Awdal gaar ahaan kuwa caasimadda ku dhaqan ee hogaamiye ururada kala duwan ee samafalka ee magaalada ka jira ayaa arintaasi soo hadal qaaday isagoo uu helinayo maayirka magaalada Boorama rasuulkeena kaleey salaatu wa salaam markuu ducaysanayay ilaahay wuxuu weydiistay amni iyo iimaan hadaynu maanta isku yaacayna masaajidka meel ku tukanaynaa cibaado iyo caawimo iyo waxbarasho iyo caafimaad iyo waxaan oo dhan waxa ay salaah wala badgeliyeen Boorama waxa kaliya ku faantaa waa magaalo multi population dad badan oo kala taatay isugu yimi jaamacad eersan kuna qof baarigta Soomaali meel ay joogto waa la isaga yimaadaa dadana banku qarxin maxay baa noo imanaysa ilaa macqoonteedu sheeganayna in inaga la inaga arko gobol lagu dayday noqono laakiin gobol wax ku dayday noqon baan rajeynaya waxa weeye ururadiina haddii dhalinyaradiina xaafidinta ugu noqotaan oo intiina aydan isku soo koobin wax badan baa qaban kartaan siyaabo badan oo isku kaashan kartaan ka waxa idin leeyahay warbal magaalada nabadgelyada inaan noo ilaashan lahayna ka hawlgala saynu isu sharciyeelno dad isku duubano iswadoogo isxaalugna aynu u noqon lahayna aan isku dayno ma wax cusub in waxyaabo iska caadi oo dunida ka dhacay ay Boorama ka dhacaan laakiinse waxa la yaab leh bamba gacmeed markii ugu horeysay loo adeegsado xarun dawladeed oo ilaa imika mas'uuliyiinta laamaha amnigu ayna sheegin cidii ka dambeysay dhacdadaasi waa Hori Axmed Hori TV-ga caalamiga Hon Cable TV magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal magacaygu waa Suldaan magacaygu waa Seeraar isku si ayaan u hadalaa isku sina waanu libisanaa isku midna waanu nahay anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sida ma sameyn karayo warmaahay run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi ma aha maxad mar hore igu sheegi weyday fikir hadal oo hadalin maalinta oo dhan ku hadal 2500 oo shilinka Soomaaliland ama bishoo dhan ku hadal $5 oo kaliya Samtel shirkadda dadweynaha